goob ay isku aruursanayeen al-shabaab isu diyaarinayay inay qaadaan weerar ay ku qaadaan ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa gebi ahaanba la burburiyay. waxaan xog idinka hayaa duqeymaha halkaasi ka dhacay oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyay kooxda argagixisada. sidoo kalena wadaad ku sugan magaalada Muqdisho mid ka mid ah masaajidada ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho ayaa si cad u taageeray kooxda al-shabaab. إنا لله وإنا إليه راجعون. نيانا دمر بكري جد مغدي ومدي لغادر ومدي مرح على كل أذان ومدي كرك على كل أذان إلهي كعصي إلا هذا رحمه إلهي كعصي away la dagaalankii dawladda ee kooxaha xagjiriinta iyo ka go'naashiyihii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ee inay la dagaalamayaan kooxaha xagjirka kuwa ciidamada ah saraakiisha kuwa ka kasaraayo xasan maxkamadda ilaahay ma difaaci doono culimada u duuban oo si tadiyoonaaya shabaab illa tiraahday xaqo ilaahay ka cabsado waayahay aan ku bilownay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay duqeymo diyaaradeed oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. duqeyntan oo ay fuliyeen saaxiibada caalamiga ah oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka ayaa si gaar ah uga dhacay duleedka degmada lagu magacaabo Buulaburde ee gobolkaasi Hiiraan. wararka ayaa sheegaya in weerarkan lala beegsaday saldhig ay al-shabaab isku aruursanayeen oo ku yaala deegaanka Jiciibow oo qiyaastii 20 kiiloomitir u jira magaaladaasi Buulaburde. khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa kooxda ka soo gaadhay duqeyntaasi oo ahayd meel ay isku aruursanayeen ciidamo al-shabaab oo doonayay inay weeraraan mid ka mid ah xeryaha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in ay maqlayeen gantaalada ay ridayeen diyaaradahani balse aysan xaqiijin karin khasaaraha ka soo gaadhay kooxdaasi. saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo ka hadlayay weerarkani ayaa shaaca ka qaaday in ay ku dileen maleeshiyaad iyo hogaamiyeyaal ku sugnaa goobta la duqeeyay balse ma aysan shaacinin tirada rasmiga ah iyo magacyada xubnaha lagu dilay halkaasi. sidoo kale waxa intaasi ku dareen in la burburiyay goobo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka Jiciibow isla markaasina gaadiid iyo hub laga gubay sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. ma jiro wax wada hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan duqeyntaasi oo ay guulaha ka sheeganayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemaya qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee maamulka Hiirshabelle. dhanka kalena mid ka mid ah culimada magaalada Muqdisho ayaa isaga oo magaalada Muqdisho ku sugan waxa uu si cad u taageeray kooxda khawaarijta ah ee gobolkeeda uu sii dhacayo ee al-shabaab. waa mid ka mid ah masaajidada ku yaala bartamaha magaalada caasimadda ah Soomaaliya ee Muqdisho. ninkan hadlayay waxa uu ka hadlayo ee uu ka taageerayo kooxda xagjirka ah ee banaysatay dhiigga iyo hantida iyo maalka ummadda Soomaaliyeed. waayahay wadaad caan ah ayaa fariin yaab leh u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo toos u taageeray kooxda xagjirka ah ee al-shabaab. wadaadkan ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ku qaldan yahay dagaalka uu kula jiro al-shabaab. حسنا وشباب كنت راسلها ديارنا سوى عليك سنت وقوبها إنا لله وإنا إليه راجعون. نيانا دمر بكري cabdiraxmaan axmed rooble wadaadkani lagu magacaabo ayaa waxa ay warbaahintu raadisay macluumaadkiisa waxaana ogaanay in uu maamulo masaajid ku yaala degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho. cabdiraxmaan waxa uu si bareer ah oo aan gabasho lahayn iyadoo muuqaal laga duubayo uu leeyahay dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa ay ku qaldan yihiin in al-shabaab la dagaalamaan oo dhiigooda ay banaystaan. جد مغدي ومدي لغادر ومدي مرح على كل أذان ومدي كرك على كل أذان إلهي كعصي إلا هذا رحمه إلهي كعصي sidoo kalena wadaadkan ayaa weerar afka ah ku qaaday culimada Soomaaliyeed ee fadwootay in dagaalka al-shabaab uu yahay jihaad xaq wuxuuna culimada ku tilmaamay kuwa gaalada la shaqeynaya. culimada u duuban oo si tadiyoonaaya shabaab illa tiraahday xaqo ilaahay ka cabsado. sidoo kale wadaadkan ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyay inuu hub iyo diyaarado dagaalba ka soo qaatay dawlado shisheeye oo gaala isla markaasina uu kula dagaalamay kooxda al-shabaab oo uu dhiigooda uusan u banaaneyn in la daadiyo sida uu qabo Cabdiraxmaan Axmed Rooble oo aan sheekh ugu yeeri karin.
mar raba wadaadkani sooma hadal qaadin dagaalka iyo qaraxyada ay dadka Soomaaliyeed ee shacabka shabaab ku laayaan taasi bedelkeedana waxa uu dawladda iyo ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliyaba ku dhaliilaya beegsiga ay ku hayaan kooxaha khawaarijta ee gobolkoodu sii dhacayo ee loo baahan yahay in laga sifeeyo guud ahaanba Soomaaliya. haddaba ninka sidaas u hadlaya waxa uu joogaa caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. wuxuu sheeganayaa sheekh weyn oo caalim ah oo ku takhasusay diinta Islaamka. wuxuuna maamulayaa masjid ay jameeco badan ku xidhan tahay oo ku yaala degmada Hiilwaa ee gobolka Banaadir. dawladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ammaanka weli ma aysan soo qabanin ninkan xaq jirnimadiisa ku dhex faafinaya Muqdisho isagoo ku dhex nool dhul ay maamusho dawladdu gaar ahaan degmada Hiilwaa. hadalka wadaadka ayaa si weyn uga yaabiyay dadka waxa ayna la isweydiinayaa sababta uu ugu dhiiraday kelmadaha noocaasi ah oo uu khawaarijta ku taageerayo. intaas ayaan jeclahay daawadayaal in qodobkeena ku soo gabagabeeyo kuma hasanidin la socodkeena.